بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد داوديال casharkan waa casharkeeni afraad ee ku saabsanaa nutritionka iyo dietka maanta saa u jeedaan waxaan ka hadli doonaa calories waxay yiraahdaan calories markaan ka hadlayno macnaheedu waxa waaye energy-ga ama calorie intee leeg ayaa loogu talagalay maalintii inaad qaadatid waxaan rabaa in aan la wadaago calorie-ga maalintii loogu talagalay 24 hours inaad ku noolaatid waxaa lagu tilmaamaa 1500 ilaa 2000 marka waa 1500 ilaa 2000 oo calorie maalintii inaad cuntid biyo macal cunto markii la isku daro ayaa lagu talagalay marka calorie waxa waaye energy ku shaqeynaysid maalintii marka hadda aan hadlaayo aan istaagsanahay calorie baan ku shaqeynaa energy ku shaqeynaa hadalka aan hadlaayo calorie waa gubaya ku shaqeynaa laakiin se calorie-gaas waa inuu soo galo markii hore anoo gaajeysan inta meeshan soo istaago ma hadli karin shaqo ma qabsan karin marka qofka shaqadii calorie uu ku shaqeyn lahaa waxa waaye energy uu ku shaqeyn lahaa 1500 ilaa 2000 ayaa loogu talagalay now tusaale yar ayaa rabnaa inaan bixino koobka shaaha ah Starbucks-ka ah kan weyn waxaa loogu talagalay mataqaanaa inuu ku jiro waxaa loogu talagalay 450 calorie marka hadlaa kan waa 450 calorie ku jira 42 grams of sugar-na ku jirtaa marka waa chai latte-ga Starbucks-ka lagu iibiyo marka kan Soomaaliga markaan qiyaasay waxda Soomaali oo qiyaasan ama qoran ma jiro ama qaayad walba ama coffee shop walba Soomaaliga mataqaana siisu ay u sameeyaan shaaha waxaan ku qiyaasay ilaa iyo 500 oo calorie waxaan rabaa in ay la socotaan kan waxa lagu qiyaasay 450 ayaa ku jira liiri kanna waxaa ku jira 500 oo calorie marka maalintiina waxaa loogu talagalay 1500 ilaa 2000 oo calorie marka koob shaaha oo Soomaaliya markaad cabtid maalintaas 500 haysataa mid kale hadaa cabtid 500 kale haysataa mid kale hadaa cabtid 500 oo kale haysataa marka 1500 loogu talagalay waa joogtaa laakiin waxaad haysataa wax la yiraahdo empty calories waxaa iska dharjisay energy laakiin energy-gaas waa empty wax uu ku taray haba yaraatay malaha nafaqo malaha vitamin malaha minerals macdan malaha wax uu ku leeyahay haba yaraatay malaha marka waa empty calories ayaa la yiraahdaa waxa kaloo kaaga sii daran koobka shaaha Starbucks-ka ee hadda aan soo sheegnay ee weyn waxaa ku jira 42 grams of sugar now 40 gram oo sonkor ah waxay u dhigmataa 4 grams of sugar waxay u dhigmataa hal qaado 1 table teaspoon kafan 42 gram oo sonkor ah waxa u qaybinaynaa 4 gram waxay ku soo baxaysaa 10.5 koobka Starbucks-ka ah ee hadda aan soo sheegnay waxa ku jirta shaaha ah 10 qaado iyo half oo sonkor ah koobka Soomaaliga qiyaasteedii aniga markaan qiyaasay waxa ku jira ilaa 12 ilaa 13 qaado oo sonkor ah table teaspoon markaan ka sheekeynayno waxa waaye qaadada weynna maaha qaadada yarna maaha qaadada dhexdhexaadka waaye now waxaa loogu talagalay 1500 ilaa 2000 oo calorie-gaas ama energy-gaas waa inuu noqdo good proteinka fiican waa inuu noqdo meeshuu ka imaan doono waa sheegi doonaa waa in uu noqdo healthy fatka caafimaadka qaba ee fiican sababtoo ah fatka wuxuu kala baxaa unhealthy fat iyo healthy fat waa ka sheekeyn doonaa waa inuu noqdo carbohydrate-ka lagu tilmaamo complex isna laba u kala qaybsanaa simple iyo complex waa tilmaami doonaa waa in uu ahaado cuntada fiber cuntooyinka fiberka la yiraahdo marka 1500 ilaa 2000 ee energy-ga mataqaana ah waa in ay ka imaato cunto fiican waxaan rabaa tusaale yar inaan idin siiyo halkan waxaan ku hayaa 2 koob oo Soomaali oo shaah Soomaali lagu cabay 2 habeen ka hor ayaa lagu cabay halkan yaaleen 2 maqaayad oo kala duwan ayaa laga soo kala iibiyay midna waxa ku badan sonkorta midna waxa ku badan caanaha marka qiyaasi karaa waa ogaa markii la soo iibinayay waxaan rabaa in aan tuso marka 2 habeen buu xafiiska yaalay ama meeshan yaalay oo laga tagay suun noqday marka muhiimka weyn waxa waaye waxaan markaad calooshaada gelisid calooshaada saas oo kale noqonaysa marka waxaan rabaa tusaale ahaan oo kale kan hadda aan furayno waa mid ku badan sonkorta marka sonkortii way istaagtay saasay noqotay marka koobkan oo kale markaad cabtid
oo shaah ah oo sonkorta u badan tahay calooshaada saas oo kale u fadhiisanaysaa xataa haddii aad urusid way soo uraysaa sida hadda ujeedaan koobkan shaaha waa koobkii aan dhahay sonkorta ayaa ku badan 2 habeen ayuu ku baryay halkan saas ayuuna noqday waa ujeedaan u malaynayaa marka hadhowtii markaa consume garaysid waxa kan saasaad noqonay calooshaada saasay noqonaysaa wayna adagtaa waxaas calooshaada inay ka baxaan maalmo ayay qaadanaysaa waa si fiican ba ujeedaan ba u malaynayaa marka waxaa kaloo ka daran uu soo orayaa marka calooshaadan waxaa waaye waxaanu qashina ku jira marka sonkor saa u badan aad gelisid haddana waxaan sameynaynaa koobkii kale saa ujeedaan hataa waxaa adag in uu kala baxbaxo waa adag tahay kan kale aan raba inaan idin tusiyo waxa waaye koob kale oo shaah ah koobkan shaaha isagana caanaha ku badan caanihii saasay noqdeen marka way qurmeen way istaageen marka shaaha sonkorta iyo caanaha aadka loogu badiyay markaad cabtid saan oo kale ayaa calooshaada noqonaysaa koobkan waa koobkii caanaha u badnaa saas ayuu u egyahay waan daadinaynaa hadeertaan soo u socdo bal fiiriya waxaan rabaa soo iskugu dhegdhegay inaad aragtaan mad fiirisaan koobkan shaaha ah waxaa ka buuxa sonkor sidoo kale waxaa ka buuxa caana marka saas ayuu noqday biyaha xataa markaan ku shubna hadda way adag tahay inuu kala baxo saa ujeedaan cabaarka qaadanaysaa waxaa intaas kaaga daran urka kasoo uraaya ayaa kaaga daran marka walaalayaal waxaan waa waxyaalaha dadka aan uga digayno sonkortan faraha badan shaaha maalin 3 jeer ilaa 2 jeer la cabayo saas ayuu noqday gudihiisii saad aragtaan calooshaadan hadhowtii saas oo kale ayay noqonaysaa marka hal iska dhaafo waanadeeda ama taladeeda waxa weeye in iska dhaafo laguna bedesho waxyaalo kale oo caafimaad qaba ayaa jira shaahan dhaama ayaa jira qof walbana mataqaanaa nafsadiisa arrinkaas uu aad uga ilaaliyo dadka casharka sida gooni ugu taxan in aan meal plankii kusoo hadartaan kusoo daro